بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dhalinyarta maanta inta badan waxay jecel yihiin inay bartaan xirfado kala duwan si ay ugu shaqaystaan oo ay ugu kasbadaan lacago badan marka haddii aad rabto inaad xirfad aad barato waxaad raacdaa tallaabooyinkan soo socda intaan u guda gelin mowduuceena maanta fadlan haddii aad nagu cusub tahay ha ilaawin inaad channelka subscribe noo saarto haddii aad hore noola joogtana muuqaalka aad like garayso lana wadaagto asxaabtada kale si ay ugu faa'iidaystaan mahadsanidin koob xulo xirfad sax ah oo adiga kugu habboon micnaha dooro xirfad aad xiisaynayso barashadeeda ama aad u baahan tahay inaad barato waxaadna hubisaa in xirfaddaasi leedahay fursado shaqo iyo sidoo kale inay ku gaarsiinayso horumar shakhsiyadeed labo sameey qorshe waxbarasho waxaad barataa aasaaska xirfaddaas ama xirfaddaad rabto aasaaskeeda baro sidoo kale go'aanso muddada aad rabto inaad ku barato xirfaddaas waxaadna barashada u yeeshaa waqti go'an si aad horumar ugu gaarto saddex ka faa'iidayso koorsooyinka iyo buugaagta waxaad koorsooyin online ka raadsataa websaytyada soo dhiga koorsooyinka iyo sidoo kale youtube-ka sidoo kale waxaad akhridaa buugaagta xiriir kale leh xirfadaad rabto inaad barato waxaad kala raadisaa macallimiin ama dad khibrad u leh xirfadaad rabto inaad barato si ay kaaga caawiyaan afar ku dadaal waxaad baratay inaad u beddesho ficil aadna ku samaysato ubar badan xirfad weliba aad baranayso si joogtaa ficil ugu beddel si aad natiijo fiican ugu hesho haddii aad baranayso xirfad farsamo sida loo hagaajiyo fiidiyoyada ama sawir qaadista isku day maalinkii inaad hal fiideo aad samayso ama inaad dhowr sawiro aad qaado shan raadso bulsho xiriir la leh xirfadaad rabto inaad barato micnaha ku biir koox ama bulsho xirfaddaas ka shaqaysa sidoo kale raadi dad xirfaddaas hore ugu guulaystay si aad wax ugu faa'iido ka qaybgal siminaarada lagu bixiyo xirfadaad rabto inaad barato lix la soco horumarkaaga qiimee horumarkaaga bil kasta ama sannad kasta haddii aad caqabado ama dhibaatooyin aad la kulanto haniyo jabin ee sii wad dadaalka wax ka baro khaladaadkaaga si aad u sii horumariso xirfaddaada xirfad barashada waxay u baahan tahay dulqaad dadaal iyo ku celcelin joogta ah haddii aad si joogta ugu dadaasho waxaad noqon doontaa qof xirfad leh oo karti badan haddaba daawadee adiga xirfad noocee ayaad jecesha inaad barato insha allahu tacaala waad baran doontaa keliya waxaad ku dadaashaa inaadan isdhigan asalaamu calaykum